madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha Galmudug. Dhismahan sida casriga loo dhisay waxaa qarshaadka ku baxay maalgeliyay Bangiga Adduunka waxaana uu qayb ka ahaa mashruuc horumarineed oo loogu talagalay Galmudug. Wasiir Dowlaha wasaaradda qorsheynta Galmudug Cumar Maxamed ayaa ugu horreyn ka hadlay isla markaana ka sheekeeyay mashruuca lagu dhisay xarunta wasaaraddaasi iyo heerarkii kala duwanaa ee soo martay. waxaan ku qasbanaanay inaan anagana salka meel raasano haddana saasay taa aan ka sii shaqeyno horumarkii kale iyo mashaariicii kale ma aanan dhihin ma qaban karno ka shaqeynta mashaariicda xarun ma lihin labadaan isku wadnay marka alxamdulillah nasiib wanaag maanta xaruntaanaan joognaa mashaariicdana alxamdulillah wixii oo aan ka qaban karno oo qaarkood hortarinta lena waa noo socdaan aadayna farxad noogu tahay inaan nagala soo qayb gasho sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad gaare ودرو وزارة قرشين تفضل كأيجنا كأنا قال جيستي جارهان مشروع بيولي يو أنو جاري ما تقانا كشقينا جل مدك مدحويني وحوار كنا كل يرى المرة فرحدنا ما أنت بلشة جل مدك يضمان جارهان وزارة ده هو أنا ده فرحت جاري ما أنت وتانا كسوق بقشة وحنو مرينا أدي كدي وزارة قرشين ورا وحوقتي ورنكي وحلو بدل يعنده وزارة هذه ينبري وهاي شيء شغلين إن شاء الله ستة على صعدنا تنا دامة حرم يبيع عن كل شقينا هلنا. madaxweyne Qorqor oo si rasmi ah u daafuray dhismahan cusub ayaa dhankiisa munaasabada ka sheegay mahadcelinta Bangiga Adduunka iyo cid walba oo ka gacan geysatay dhismahaasi. wasaaradda qorsheynta annagoo xaruntaas iyo meelaha kale oo waqtigeeda aan tagi doono waa ka mahadcelinaynaa haddana waxaan leenahay codsigeennaan ku sii daraynaa hay'adaha kale ee dowladda iyo meelaha muhiimka ah in ay dhammaan hay'adaha saaxiibada beesha caalamka ay gacan naga siiyaan runtii waqtigaa kooban wax weyn baa noo qabsoomay oo meelo fara badan oo horena qaar loo furay wana hadda galabtan inta aan furayno kuwaan dhammaadkoodii la dhow yahay kuwa dhammaadeen balse baahidii jirtay iyo runtii gaabkii jiray weli ma dhowa waa midaan codsiga iyo in ka caawiyo aan u dalbanayno waxaan runtii dadka reer Galmudug meelay joogaan buu mahadcelinayaa mashruuc kasta ama wasaarad kasta ama meel hay'ad kasta loo soo baahdo in la dhiso inaan si uga qayb qaadanayeen mutadawacnimo ah wadaniyad leh dareen leh runtii aad iyo aad u wanaagsan leh loo qayb qaadanayay oo ay ka mid tahay dhulkii dowladda in la dhowray la ilaaliyey aan loo isticmaalay si qaas ah xaruntan dhulkan baaxaddan leh waa dhul ka mid ah dhulkii ay hay'adaha dowladda lahaayeen. labadii sano ee la soo dhaafay Galmudug ayaa ku talaabsatay horumarinta goobaha adeegyada bulshada iyo sar u qaadista dowlad wanaagga oo dadweynaha ilaa iyo baadiyaha lagu gaarsiinayay. Cabdi Xaaji warbaahinta Nation Muqdisho.